halkani waa Somali Radio in Ireland waa barnaamij ku saabsan masjidka magaalada Dundalk ee Jamhuuriyadda Ireland waxaan maranta barnaamijkeenan wuxuu nooga imanayaa magaaladaasi khaasatan masjidka weyn ee la yiraahdo masjidka Islaamiga masjidka Dundalk ee Islamic Culture and Center oo ay halkan fadhiyaan jaaliyadii Soomaalida ahayd ee qaybta lixaad kale ka qaadatay inuu masjidkan dhismo masjidkan maanta waxaanu u sameynaynaa fundraising in dadka walaalaha ah ee Soomaaliyeed iyo dadka Islaamkiiba ay ka qayb qaataan baahiyaha masjidkan oo dhawaan la dhisay oo ay inooga sheekeyn doonaan dadka khiyaarta ee culimada masjidka ku xiran ee dhalinyartani marka imika waxaynu doonaynaa barnaamijkeena inaynu ku bilowno masjidka xaaladiisa oo aynu ku bilowno Sheekh Xamse المساجد تفاصيل ركوبا نغسي بسم الله الرحمن الرحيم مساجد كان مرحلة ضرب صومري الحمد لله وقبوا لي سنين الذي يرد ما شجوكتنا كان وين بك قاتل يجي وضياش وضي وهي لها البالة الحمد لله حدنا وباهي مساجدكي أو إنات قاعد استقع. أوكي waxaan tagsiirnaa Sheekh Naasir magaca istaxado ku bilaabay iyo masjidka hawlaha iyo u baahan yahay iyo السلام عليكم دمان وسلامتين magacaygu waa Naasir Xamdi Yaasiin مساجد kan sida hore u sheegtay waa masjidkan wuxuu shaqeynayay dhawaan inta sanadkan ilaa bishii koobaad مساجدكن محبوبة هي fundraising أو سياقة بدنا لقى عاوية مساجدكن وح يجسي دون دروا كذم أو يقول حاجة كذم بقى إنه شيء كذم إنك هيك وصافصان مسجدكن يو هولي سئية خاصة كذهان مسجدكن يو باهيس بلدون بسم الله الرحمن الرحيم هرتكو حنسول بنيا لما تشرفتها ما تنجبتها سيد عبد الولي داود iyo Cabdirashiid oo kaamilno haya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu yani qofka ilaahay rasuulka sameeyo martidaada yani karaamay oo soo dhaweey marka soo dhaweeyna hadaan hay jaaliyada Dundalk ee dalkan Ireland masjidkan sida walaalahay sheegeenba xogaa uu soo jiitamay oo muddo isku day inaan sameeyno وكقول الحمد لله رب العالمين هذا ماشي أركيسان أو بحد وين لي وماشي أنا كنت كنا جماعة ويد بعشنتها صراحة كنا الحمد لله إن ومش أسقي ماذا سومالي كلي قاس معهم مكان بسالكم كل حياة كمسلمين مجالا كنا مجالا مكو مجاله وتاون مجاله وين سيتي معهم وأنا إن وحنا كم تهي وحوين وحنا قاعدتي مجالا بحد وين dalkan Ireland dad badan muslimiin ay degan masaajidka baahidiisa aan u gudbo marka masaajidka wuxuu u baahan yahay carpets hada waxa ugu muhiimsan waxa tahay meeshii lagu tukan lahaa ayaa wuxuu u baahan tahay in la qalabeeyo marka qofka ka qayb qaadanaya waxa uu lahaa ka qayb qaado insha Allah hadalkana inaan ku dheeraado ma rabo oo gudoomiye Axmed iyo waxa jooga iyo Sakariye oo ayagana kamid ah جاليدة Soomaaliyeed ee halka ku nool marka ayna u deenaya insha Allah shaaxid inagoo barnaamijkeena qoqosanayna marti sharaftu inoo dambayso waxaan ku fikireynaa Axmed Daahir oo kamid ah madaxda halkan masjidkan بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Daahir waxaan deganahay magaalada Dundalk muddo ayaan deganahay hadii aan nahay Soomaalida ama jaaliyada halkan degan waxaan nahay dad isku duuban oo hal xaq ah isku yimaado wixii daar iyo dayf wax kasta ka wada dhaxay wax ka wada qeybsado oo hal meel ka soo wada jeedo waxaan sameynay dadka muslimiinta halkan nala degan anagaba in aan masaajid sameysano muddo 3 bilood ilaa 4 bilood ayaan u soo sarbaabaleynay gurigeyga temporary lagu dukanay aan muddo meel kasta marayna wax kasta aan raadinayna ilaahay amarkiis bishii Janaayo koodeedii ayaan furay masaajidkan helnay meel weyn baan karisanay كنترات بانقلني ويبان سمين واسكننا مسلمين تبيعنا دقني عنيو أو إيش يعني
oo baajuun ah oo suudaan ah oo carab oo dad kasta leh marka waa masaajid baaxad weyn oo wanaagsan weyn marka waxaan ka codsanaynaa walaalahan soomaalida iyo wixii muslimiin oo muxsiniin ah inay naga caawiyaan xagga goysha masaajidka iyo waxyaalo badan u baahan yahay waan jecelnahay in aan ku horumarin waxaa kaloo kamid ah kitaabada qur-aanka oo ilmaha say u akhristaan iyo waxyaalo kaloo marka waxaan jecelnahay inaad dhinacaas naga caawintiin wabillahi towfiiq waana mahadsantihiin inagoo barnaamijkeena sii wadanana waxaan ku xogsiin doonaa Sakariya. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرعي وسكري محمد أحمد وحن كمل هاي شريط كنا مجال دندوق. رتوه عرض هذا وليبي. مساجد كم حن كان لنا مباهيسة ويكوك تاعي كربتك يو كتب تبخلاق القرآن خلاق استو. مركا حوالي كأتصنع صوماليات أمام مسلمين تا إن مساجد كن سوق منطقة نوصف فيها كجا. السلام عليكم. waan soo wadaynaa barnaamijkeena waxaa halkan la fadhiya marti sharaf ka timi magaalada Dondok magaalada Dabliq soo Daawud. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت عادي أتبعه وفرحسناي إن أنا معدوم مسلسل بلوتشيا وهذا أنت هنلاقي وروح هنلاقي وعلى مثال قاب كله مسلسل ما كنا تصي بلاد بالكتب كذية ملاك كافر وصل على كبار ملاعير كل جاية ماشي عن جونو حفيز كيا وهذا رك صومالية ده ولا مثال محمدي أي وقت قاتين هوشان قطان ولا ما يسترا أنا آدي أدون وفرحنا ويان من ورا لها إنه قفك صومالي دونية إنه باكو صومالي ده كله حلقة يسنس تندوه هي مادو قفك دونية صومالية ده دونية إنه وجادو إن بس يجي تلسكو ورس تحت حيرو ولا يسكت أصلا كيرلا بحيل كل يشام غرا تندوه هي مادو قفك دونية صومالية دونية تندوه إن دسين في عرلو مرسولين برضو تندوه هي مادو كل تندوه ليس نوع وجه هذا تندوه واحد ضرب يكون أسنتين وعمنا والله صنع قدرة ليسك محاول نقف marka waxaa jira arrin aad iyo aad u qiimo badan oo aan caawa masaajidkan ugu nimid oo ah masaajidkan inuu yahay masaajid cusub masaajid alla mas'aan hay'ad iyo cid kale ku xirnayn marka masaajidku baahiye badan buu leeyahay dadka Soomaaliyeed daawanaya waxaan ka codsanaynaa masaajidkan wixii aad keensan kartaan waliba dadka Ireland degan ay keensan karaan inay keensadaan kuwa Ingiriiska jooga wixii ay keensan karaan masaajidku u baahan yahay kaarbi buu baahan yahay la sheegay wuxuu baahan karo u baahan yahay experience ya aqoon buu baahan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed meel shaqo joogay oo experience ku beerin karaan inuu ku beeriyo marka waxaa jirta waan arkaysaa maqlaysaa masaajidku arkaysaa sidii yahay sidoo qurux badan yahay taan garab rasiin oo la garab qoon kaliya wax qaban maayaan marka waxaan leeyahay meel soo joogtaan ba ka qayb qaata Dondok Islamic Cultural Center mosque imika barnaamijka ku dhawaynaa Ahmed Wali Abdulwali sorry Abdulwali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبغى السلام يا فاتن داودم سشرف لي نوصل دوين سنوك شرفتنا النوع سيسني لهايدي العسية هذا خصوصا نقضاء أريك المساجد كورت مركانو عنيمية مساجد كان الشيء أبغى وجهه والله وأنا شعرين أن مجال المسوقورو وايو وحسوي نوعتي كواليتي هيدا نظيفة هيدا مجال الشوكة وأنا دad isjecel oo isku xiran waxaad ku garanaysaa meesha ay kireeyeen baaxad ay leedahay iyo sidii ugu bareereen inay wax kasta ay jeebkooda ka dabraan iyagoon cidnaba ku xisaabtamayn kale marka taasna wax ilaahay lagu mahadiyo oo dee dad u bareeray 1500 oo kira iyo expenses-kii kala dheer aad bay ku tusaysaa inay meeshaasi quality badan yaalo tan kale waxaan soo noqonayaa baahiyaha masjidka baahidiisu ma aha oo kaliya wax maanta jooga ma aha oo wax loo baahan yahay in bil kasta laga qayb qaato oo masaajidkii laga warhayo oo qof kastoo Soomaaliya ama qof kastoo muslima oo jecel khayrka in wax ku darsado waayo nabigu wixii ugu horeeyay uu dhisay may ahayn gurigu isagu leeyahay waxay ahayd meel ummaddu isugu timaado oo ay ku tukato marka waxaan leeyahay ummadda muslimka sidoo rasuulku noo sheegayna qofkii masjid dhisa ilaahay guri buu dhisaa marka waxaan leeyahay ma aha oo kaliya masjidku dhisidiisu ma aha inaad adigu inta lacagtaadii qaadaan masjid dhisto wax kasta oo aad ku darsataa oo adigu aad awoodaa waxay awooddu waxay ka qayb tahay
inaad samaysay uun masjid aada dhistay. Marka anu waxaan kula dardaarmayaa dadka walaalaheena Soomaaliyeed inay masaajid kasoo qeyb qaataan, kaarbadkiisa, korontadiisa, kiradiisa iyo baahiyihii kaleba. Wassalaamu calaykum. Doona soo xiriiraan walaalaheena. Okay, barnaamijkeena waan sii wadaanaa. Masjidku cibaado oo kaliya inta badan waa lagu yimaadaa, laakiin masjidka waxa weeyaan wuxuu leeyahay madaaris meelaadka wax lagu baro oo diinta islaamka lagu gaarsiiyo. Wuxuu leeyahay meelo kale oo xafiisyo leeyahay howlaha sida mujtamaciga u adeega. Marka barnaamijyadaas oo dhan bal noo faahfaahi Master Qudin, adiga masjidkaana waxaan soo dhaweeyaa qof kasta oo Soomaaliya oo magaalada soo guuro horta soo dhaweeyaa masaajidka hal wax ay ku fiican yahay yani wax yani aylan ma haysato waa masaajidka kaliya oo ardada lacag laga qaado ardada madrasada dhigata shilin lagama qaado maasha Allah waana wax soo jiray xataa anagoo masaajid aan haysan ayaan saala samayn jiray oo ardada madrasadii hore xataa ka qalin jibisay oo quraanka dhamaysa xataa waxay quraanka ku dhameeyeen ayagoo aan shilin lacag bixin istaqfar waxaa laga qaadi jiray €1 oo kuntu bishii mar €1 ayaa laga qaadi jiray marka meesha magaalooyin kale ee Ireland ama wadamada kaleba ardayga yani quraankii uu noqday business ardayda lacag laga qaaday oo bishii markii gaar ardayga leeyahay haddana yani kirada bixin wax ka bixin iska baxin leeyahay marka ilaa mataqaanay inta la rajistay okay gudoomiye masjidka baahiyaha kale maxaad ku darleen adigu aad leedahay fikirkaaga? waxaan ku dari lahay waa sida walaalkiisa keli u sheegay labada lagu daro waa labadaas kowdhe iyo wixii kaleeto lagu tabaracda lagu soo caawin karta inaad lagu soo caawintaan jecel haddii la yidhahdo. waayahay barnaamijkeena inagoo yar googoosanayno soo dhamaystirayna masjidka magaalada Dondog masjidka magaalada Dondog ee Islamic Cultural Center. Daawud kelmadaada adoo soo koobaya. Horta kelmadaan anu oranaya waxay tahay arrin iniga sheekay baa jirto magaalada London joogta waxa lagu yiri nin Yuhuudi ah ka markaasaan ku waa sheekh dalmar baa sheekay dalmar oo bifriga degan baa xajiga sheekay marka ninka Yuhuudiga waa ka wili Soomaalidu meel ay ku daan tahay marka wiilashii wuxuu yiri waa Soomaalidu international misal ku degantiin marka wuxuu sheegay la mara dhow kun bay ku degay marka wuxuu fiirin kun miya hal supermarket furataan dukaan furataan inta isku tagtaan kun dabeetana dukaanka markaas furataan sheerkaad yeelataan dabeetana dukaanka meel kasta tagtaan aad dukaanka ka iibsataan si dukaanka markaad u iibsanaysan lacagtiina wadiisa noqonaysa marka waxaan leeyahay ciidan doo wadiibtiin dad jecel baa tiin inteeda kala baahin horta dadku markay xoolooda leeyihiin bay si jeclaadaan marka masaajidkana haddii maalin walba 1500 noqoto aakhirka waxa laga kala kacaysaan bal sabab ku darsada insha Allah dina kada mustaqbalka inaad alaamsa dukaanka meel dukaan aad furataan dukaanka oo halaalo qof kasta muslim masaajidka jooga uu ka iibsado oo si alaamsa Maxamed ay uu masaajidka dhow wax lagu kabi karo laakiin waxa la tahay lagu hadleen Soomaalidu meel kasta joogto waa samayso laakiin inaynu alaamsa caawo u nimid masaajidkan inaynu alaamsa Maxamed ay soo booqano oo sida qiimaha badan loo soo dhaweeyo anana waxaan mas'uuliyadda saaran tahay wax weeyaan inaan fariinta cawaalka qaadno in masaajid Soomaaliyeed oo alaamsa qabiya oo bilow oo culeyskeeda leh ay ragaas u baqayeen sidoo sheegay marka inaanu garab istaagno oo aanu Soomaalida kale gaarsiino oo siiba masaajidkii WAD ka tirsanaa ama sheego in alaamsa kitaab sida lagu codsaday sakariye oo gudida ku jiro shurada marka arrimahaas waa arrimo u baahan haddaynu Soomaalinahay waa arrimaha diinta waxa weeye waa meesha qole ee ajraan ku helayno waa meesha qole ku midoobayno marka wax kasta oo qolo kasta wax bilowdo in garab siiyo ayaan caawa ناصر حاجة مسجدك arrimaha ijtimaaciga ee caam ahaan bulshada hal ku dhaqan maktabad baad leedihiin maxaa kamid ah waxyaalaha aad qabataan ee service kale ee masjidku caawiyo dadka islaamka ah ee degan magaalada Dondog? waxyaabaha kale ee masaajidka aan ka caawino dadka waxaa kamid ah sidaad arkaysid masaajidku wuxuu leeyahay xafiisyo khaas ah oo sidoo kale waxaa jira inaan weekendiyada kale amba cishaayiga kadib sometimes aan kulanno oo aanu shaah wada cabno oo aanu sheekaysano oo aanu waxyaabo badan nolosha kala sheekaysano oo aanu bas masaajidkii cibaadadii mooyaane laakiin xafiiskana si gooniya aan intan iskugu nimaadno aanu baahiyaha iyo waxyaabo badan iska wareysano oo aanu magaranaysa ayaa kamid ah. Okay, maxaa idin qorshaysan mustaqbalka masjidka harabadan baa soo galaysa waxaa jira tartano quraan baa ayaamaad qabataan sida masaajid badan oo magaalada Dublin iyo magaalooyin kale ee Ireland ka jira
maxaa idin qorshaysan imika idin masjid ahaan waxyaabaha noo qorshaysan waxaa kamid ah horta waxyaabaha aadka aan ugu nasiibka wacan nahay communitygeena soomaalida waxaa kamid ah waxaanu leenahay dhalinyaro xufaad qur-aana oo hadda imika laba dhalinyaro ah oo xufaad qur-aana jira oo loo diyaarinayo inayna tukiyaan insha allah taraawiixda صح ما شاء الله وانا كاي ماشي halkan wiilkii maanta cishaageena tukinayo luqmaan baa la dhahaa oo wiil xaafid qur-aan oo masar kusoo bartay qur-aanka iyo wiil kale oo magaranaysaa Sakariya Maxamed Cali la dhaho iyo way jiraan magaranaysaa dhalinyaro badan marka dhalinyaradaas iyo ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله barnaamijka naga soo qayb sifir hay waxaan ku darnaa Sakariya horta airline Dantog waxaan doonayaa inay tusaale noqoto waayo midnimadu dadku marka ay midaysan yihiin way qaban karaan waxaa ka dhaca Dublin laba competition baa dhaca mid quraanka ah iyo mid kubadda ah inta badan Dantog way soo qaataa waxay ku tusisaa dadku marka soo yihiin inay midaysan yihiin iyo meel ku soo jeedaan mataqaanaa doonahooda inay wax qabsan karaan wax noqon karaan markaa tusaale u noqoto Ireland Dantog midnimadeeda ka faa'iidaystaan barnaamijkan waxaan ku koobaynaa intaas intaynu barnaamijkan mid lamida aynu